السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب سودوادا مقالكان waxaa ku qaadanayna hordhac ku saabsan koriskeena computer walbeeto dunida yaala si uu u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay operating system ama nidaam howlgal si ay isla ogaana marka nidaamka howlgalka wuxuu yahay marka hore waa ina ogaana computer wuxuu yahay iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay computerka waa aalad ku shaqeysata mar koronto oo awood u leh inay xogta aqbasho shaandheyso kaydiso soona bandhigto natiijada sidoo kale hadii loo baahdana dib loogala soo bixi karo xogtaas wuxuuna ka kooban yahay laba qaybood oo muhiim ah oo la kala dhaho hardware iyo software hardware-ka waa qaybta qalabka ee computerka waana ad ka hala taaban karo sida shaashada muuska ama hagaha looxa furayaasha ama keyboard-ka iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee la taaban karo hatta hadii la furfuro gudaha computerka qaybaha gudaha ku jira ee la taaban karo waxay noqonayaan hardware ama qaybta qalabka software-kana waa qaybta barnaamijka ee computerka qaybtan waa la arki karaa laakiin lama taaban karo waa qaybta ka shaqeysiinaysa qalabka computerka ayada laftirkeeda waxa loo sii kala qaadaa laba qayb oo kala ah system software iyo application software waa barnaamijyada la codsan karo ee computerka aanan ku imaanin sida Facebook-ga WhatsApp-ka geemamka iyo waxyaabaha la midka ah waa software qabanaya hawlo kala duwan qofka hadii uu u baahdana uu la soo degaayo isticmaala hadii uu ka maarmano uu iska tuuri karaa waxba saameynay kuma keenayaan qaybta kale ee system software-ka sidoo kalena loo yaqaano operating system-ka ama nidaamka howlgalka waa qaybta ka shaqeysiinaysa qalabka computerka oo hadii computerka uu soo ku jirin system software ama operating system ama nidaam howlgal computerkaas wuxuu iska noqonayaa qolof meel yaalo oo aanan shaqeyn karin marka systemkaas ama nidaamkaas ama barnaamijkaas ka shaqeysiyo computerka way kala duwan yihiin oo computerada caalamka yaalo dhan isku hal system kuma shaqeeyaan waxa ku shaqeeyaan sistemo kala duwan waxaana soo saaray shirkado kala duwan sida Apple, Google iyo Windows marka anaga casharkeena waxa ku qaadan doona Windows waxa uu dooranana wax kale ma ahan Windows-ka waa mid kamid ah barnaamijyada ka shaqeeya computerka waana kan ugu caansan dunida ee lagu isticmaalka badan yahay waxa soo saartay shirkadda Microsoft casharadana soo socdana waxa ku qaadan doona shaqooyinka uu qabto Windows-ga waxaana xoog saari doona ama casharadana inta badan ku qaadan doona qaybta software-ka ama barnaamijyada maadaama ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee la baro dadka raba inay computerka isticmaalaan ama ku shaqeystaan intooda badan casharkan intaas uu noo ogyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh